بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caawa xaaladda waa bariga dhexe. Iiraan oo markii ugu horeysay isticmaashay maraakiibta quusa ee badda hoosteeda dabcan sawaariikh kasoo tuuraya. Video ayaa jira ay soo bandhigeen inkastoo videodaas la isku haysto waan idinla wadaagi doonaa biidin Allah tacaala. Israa'iil caasimadeeda Tel Aviv oo sidaa u gubanaysa ugu yaraan waxaa lagu leeyahay 14 gantaalo waaweyn waa sida ay Israa'iiliinta ay afkooda ka sheeganayaan ayaa soo gudbay kuwaasoo burburiyay xaafado takhriiban iyo dhismooyin tiro badan. Waxaad arkaysaan waa Israa'iiliyiin ku xaniban dabaq hoostiisa waliba dhulka hoostiisa ah yacni meel gabaad ah. Korontadiina way ka tagtay maxay dabaqii saameyn ama qaybta hore oo dhan way burburtay ayagana hoos ay ku jiraan. Marka taana waa arrin kale. Waxaan ka hadli doonaa sidaas oo kale koronto ma dhahayo cafwan asagoo shir jirayd qabanaya waa afhayeenka ciidamada Israa'iil oo hal mar sida maas inay ku dhigto kale shib dhahaya jaraya hadalka aan ku bilaabo marka horta videoga ugu horeyn nacam maxaa yeelay xaaladda sidaan ay soo taraysa way kacsan tahay Iiraan caawa wax ay reebatay malahan marka la fiiriyo wixii kale oo inta aan hadalka sii wadno soo baxan insha Allah taala arkayna laakiin Israa'iil almuhim waa utagana okay video aan ku bilowno waxaad arkaysaan waa badda dhexdeeda okay dhowr xabay tuurayaan مثلا ilaa 4 xabo weeyaan arinta jirta marka waxay tahay Israa'iil arintan way diiday waxay tiri videogan waa video 3 sano ka hor ah oo Ruushka ayaana iska leh waxay soo saartay sooskii videogan ka yimid iyo wixii la midka laakiin muhiim ma ahan muhiim waxa ah in Iiraan ay qiranayso in markii ugu horeysay ay isticmaashay maraakiibta quusa Iiraan hadday sidaa tiri oo xaqiiqan ay tahay oo dabcan sawaariikhdii la arkaayo ayagoo hadda gudaha Israa'iil ku sii dhacaya gaar ahaan Tel Aviv marka muhiim ma ahan inay arinta ama videogan ay taageerayaasha Iiraan ay soo bandhigeen inuu run yahay inuu run ahayn midaasi waa taa arinta marka waxa ka dhashay Israa'iil wasaaradda difaac waxay soo gelisay leedahay maapkii intay soo sawirtay saad arkaysaa maapka Falastiin oo Israa'iil ahaan ayaga ku tilmaamaan waxay leeyihiin marka Israa'iil oo dhan waxa ay hadda ku sugan tahay weerar Iiraan oo imaanaya midkaasi waa ka weerarkii marka uu batay marka ay hadana waxay soo galiyeen maapkan oo ay leeyihiin Israa'iil shacabkeeda weerar xun ayaa ku socda hadda wasaaradda difaaca dhaysa adduunka arintan waa inuunan ka aamusin si fiican aan kugu soo dhaweeyo waa markii ugu horeysay Israa'iil ay cabaadayso waxaan arkayay Jackson Henkel oo dhahaya Israa'iil adiga bilaabay marka adkayso macnaha maxay tahay qaylada adduunka waa inuu arintan macnaha ka aamusin waa inuu adduunka fiiriya kada maxay tahay adiga bilaabay waa adkayso midaasi waa taa waxa la arkaya marka video lagu dhax arkaya difaaca Israa'iil inam kuwii Mareykanka naftirkooda oo gudaha ka shaqeynaya iyo dhinaca iyo badda iyo almuhim difaacyadii badnaa oo korkaasi kaga hortagaya qayb soo ridaya iyo sidaas oo kale laakiin qaybo badan oo sidaa u soo maraya maxaa yeelay ogow waxaa loogu talagalay inta badan difaaca noocan oo kale ah 15 adiga sawaariikh haddii ay u bataan macnaha inta aanan ka badnayn yani xadidan laakiin maxaa dhacay Iiraan waxay taqaanaa hal mar 100 200 300 in soo fasaxdo arinta marka waxay keento waa maxay sida sawirkan ku arki karaysaan dhismayaashaasi inay sida u burburaan bishaaro ma doonaysaa in waalidkaaga oo dhintay ama geeriyooday ama xanuunsan oo sariiryaal ah in lagaaga cumreeyo inta lagu guda jiro bilaha xurmada leh wax ka yar $300 ayaa lagaaga cumreynayaa waalidkaaga waxaana fursaddan qaaliga ku siinaysaa shirkadda xajka iyo cumrada ee Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimistan ballaaran waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday waxaana shaqadan qabanaya culimo aqoon u leh haddaba si aad uga faa'iidaysato fursaddan qaaliga ah la soo xiriir shirkadda xajka iyo cumrada ee Taqwa التقوى حجان عمره أديكو كلا سو حريريا تليفونada iyo ciwaanada shaashada kaga muuqda anwaarul qur'aan adduunyadan dhaqaaqdee aadmigii horu maray agabyada la yaab kale ayar wada adeegsaday adoo aqalkaaga jooga anwaarul qur'aan online waxa ay ku diyaarisay barashada qur'aanka kariimka iyo xifdigiisa axaadiista iyo adkaarta iyo sidoo kale barashada higaada qoraal iyo akhrin علومta shareecada sida fiqiga tafsiirka iyo waliba luqadda carabiga waxa halka kugu diyaara macallimiin awood u leh inay adeegsadaan luqadda ingiriiska iyo afkeena hooyo ee Soomaaliga waxaadna kala xiriiri kartaa nambarka shaashada kaaga muuqanaya anwaarul qur'aan online
waa dugsiga Al-Buruj Qur'an Online oo ubadka qurbaha ku nool ku barbaarinaya barashada Qur'aanka Kariimka. القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة dugsigan ayaa waxa wax ka dhiga macallimiin khubara kuwaas oo aqoon xeel dheer u leh fidinta diinteena Islaamka iyadoo ubadkeena lagu barbaarinayo barashada Qur'aanka Kariimka asaasiyadka cilmiga shariicada Islaamka sida fiqiga tafsiirka caqiidada Islaamka ducooyinka iyo waliba farqurxinta higaada luqadda Carabiga sana dugsiyeedkan waxa uu qaadanayaa arday kooban kuwaas oo kala jooga dhammaan daafaha dunida waxaana duruusta ardayga lagu soo gaarsiinaya aaladaha Skype-ka Telegram-ka WhatsApp-ka hadaba waalid ubadkaaga keen dugsiga Al-Buruj Qur'an Online adigoo ka wacay taleefanada shaashada kaaga muuqda balanteenu waa Al-Buruj Islamic Qur'an Online hal mar video aan in la wadaagayaa waa Tel Aviv waxaan aad arkaysaan afmarkan iska xiro codkan iska xiro muhiim ma ahan waa ambalaasyadii waa burbur waa dhismayaal waa wixii la midka ah okay kan waan ka leexinayaa midkan kale aan aragno saaruukh adii qaybtiisa weeyaan oo burburtay iyo ciidamada Israa'iil oo geesaha ka taagan المهم عاو إسرائيل والله هيا حالة مسهلنا وانكل لابن دونا أنفيرين دونا واحد سكر عصب لكن أرنت أقول أنا واحد هاي إن خميني أو صخري أو يري ورر كان أنا جناح دوب بالوضي إسرائيل محيتري ورر كان ما أنتو بالوضي سماهن ماشي وحمرك كسعته إسرائيل ما أنت بالوضي وررك إيران ما أنت سيدا سكر بالوضي المهم لا بقى قلا أو حد أن بالو ما لا يكون هذا الدونان أما سيدا حالة إنه خندون عتقانا مرهن هل مر أنشده مرك أفيانك وهذا لا عفوا عتق عن ديريو عفوا أنا عدك كسعودية هذا الكلام. We are in a very good حلقة جوايا. الجزيرة وحي قرية صار نوى لاقي دونا مركا. المهم السوق شركة جرائد وضع أيا أخبار صور عيسو شيء يسا كل يصير الجزيرة لا هاي إن area داسي وير أو كسعودو أو جنتالي كسعودان. سيدا درت ما دام كان مريك إشترين لايفنا هايين وأبود بأنه عرره. xogaa oo is adkeeyay marka kadibna dhac waa la diminayaa yani live-ka la diminayaa marka almuhim xaaladii ugu dambeysay waa taasa arinta kale jirta hal mar Twitter-kan aadaynaa Israa'iil meesha laga weeraray ee Iran ay caawa weerartay waa xaruntaasoo lagu tilmaamay waxa yaala difaaca Israa'iil ay leedahay kuwada ugu casiisan difaaca Mareykanka naftirkiisa yaala meeshaasi meeshay noqon kartaa aan ka ahayn meelaha nuclear-ka hadda أخبار صور عيسان أجيدا أوكي نعم وإسلاء نعم وصواريخ ذا إيران أو هذا ويل السعودة إيران عاوة إسرائيل نسشوا أدي دنتهاي إن هل سؤالا إسويدينا يا طبعا ولي السعودة سؤال شو واحد هاي صباحا أي بالوذي إيران إني دخيسه نعم قيبا وكمل الصويرة ذا الفيديو ذا أرجني ومالنا عد أيضا أيتهاي لكن صواريخ إيران maxay habeenkii sida ugu shaqeeyaan marka la fiiriyo kuwa maanta ilaa maanta waxa la yiri ilaa 800 taqriiban ay jirtay midaasi kulay waa su'aal jawaab u baahan midda kale goobta ay duqeeyeen hal mar aan shido qabiirkan aad taqaanaan san filaayo ee Mareykanka ah oo ka hadlaya goobta la weeraray iyo halisteeda hal mar waa kana We were led to believe that this retaliation would involve thousands of missiles and that it would level Israel be fatal and lethal to Israel. Even recently, the Iranian military put out a post on X saying حد هذا مركز إنك كله وريها حقلاية. Don't blame yeah, us. they just said, and to your point, I agree with you. Ayatollah Khamenei just said our response has only just begun. They just came in now. Also, there's been a report as well that headquarters at Kiryat in Tel Aviv was struck by an Iranian ballistic missile. كيريا مش هذا الشيء معناها. And so it's two reports that kind of contradict the point I was just making that just came in. Well, I've actually been in the Kiryat, and it's Israel's most secure, sensitive military facility for command and control. المهم meeshan la weeraray ee Iran ay weerartay waa goob lama taabtaan ah oo Israa'iil marka ay noqoto ay macquul ahaan in macnaha wax ka soo gudbi karaan hal mar waxaan u jeedaa wasaaradda difaaca Israa'iil maxay soo gelisay ayadan hal mar aan fiiriyo المهم waxaan ku dhihi karaa sawirada hadda soo dhacay sawirkan xogaayar qarax badan ku jira san u jeedo iyo video ganba holac badan Tel Aviv xaafadaha dhulka la simaan ku dhihi karaa dabaqyo ayaa burburay okay waxaad u jeedaan videogan waa
dhulka hoostiisa tunelada ay ku dhex jiraan waa israa'iiliyiinta jiif ma jiro xaaladda halkaanay maraysaa ogow diyaaradihii israa'iil ay laheed oo dhan iyo kuwii kale ee badanaa laga qaadi kara ilboorka waa laga qaaday oo hal xaba ma taalo oo dhinacaa iyo waxay geeyeen ii sheegay Qubras ay geeyeen israa'iiliyiinta dhulka hoostiisa waad arkaysaan waa hadeertaan okay hal mar aan sii fiirino maxaa yeelay akhbaaraadka sidaas iska soo dhacayaan weli nacam hadda weli waa u socdaa weerarka Iiraan hadda aan hadlaya weli wuxuu u socdaa si aan caadi ahayn waa 20 second ayaa hadda marka aan fiirinayna waa hadda un taqriiban okay haddana waxaa dhacaya saan u jeedo drones kaloo badan ayaa lagu soo fasaxay almuhim droneskan waxaa loo badinaya inay yihiin yani systemka inay daaliyaan kadibna sawaariikhda rasmiga ah ma aaminaysaa haddaan ku dhaho sawiradan waa caasimadda Israa'iil saa u burbursan oo Gazaad u malayso arrin la yaab leh Iiraan kolley jugtii way bilowday waxaa laakiin arrinta aan u jeedaa Mareykan iyo way soo galeen si ay u difaacaan oo ay u qabqabtaan iyo Ingiriiska sida akhbaaraadka hadda ay soo dhacaya Suuriya ayadan waxay joojisay dabcan jawigeeda inaanan cidna soo marin okay sawaariikh badan macnaha sawaariikh aan drones badan gudaha Israa'iil ku socda magaalooyin kala duwan Israa'iil waa la jukeynaya haddaan ku soo koobo asaas nacam wixii soo kordha video wixii ka soo doobi doona caawa kale hurdama jirta miyaa ma aqaan say noqonayso waan arki doonaa waxaan u jeedaa oo kale Israa'iil oo ayadan hadeertan weeraraysa Iiraan caasimadda Tel Aviv macnaha caasimadda Tehran oo qaraxyo laga maqlaayo taana waa akhbaar cusub nacam okay waa akhbaar cusub ayadana breaking news weeyaan waa caasimadda Iiraan Tehran oo qaraxyo laga maqlaayo okay almuhim intii ugu dambeysay weeyaan Ayatollah Khamenei uu hadlay No, they started this and initiated the war. We will not allow them to walk away safely from this crime they have committed. إيران هذا الكود يعني وفي عينها قف كيلو إزدفاع طبعا لكن بلايا سمينا أنت سمينا ورتمية أعمل معناها يعني فلا سيلين سيكولتها معناها المهم أنت سنكسر كوبا يا سيقولون فيديو زائد كأول إيران أرنتوا السعودة المهم أنت سنكسر السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته حالات مسهل لنا ma rabtaa inaad barato sida lacag xalaal ah looga sameeyo online ku soo biir dulmidi.com oo hel koorsooyin faahfaahsan oo kaa caawinaya inaad horumariso xirfadahaaga waxaan hadda u fududeynay dadkeena inay lacag ka sameeyaan internetka dulmidi.com waxay bilowday barnaamijka affiliate-ka halkaasoo aad ku kasban karto ilaa 30% commission adiga oo dadka kale u gudbinaya koorsooyinkeena ma jiro wax maalgelin ah kaliya iska diiwaangeli hel linkaaga gaarka ah si aad u bilowdo lacag samaynta ka mid noqo kuwa lacagta xalaasha ah ka sameeya internetka haddii aad u baahan tahay caawinaad nala soo xiriir lambarka ka muuqda shaashada qoraal ahaan ama cod ahaan hana soo wicin booqo dulmidi.com oo bilow lacag samaynta maanta أنوار القرآن adduunyadan dhaqaaqdee aadmigii horu maray agabyada la yaab kale ayar wada adeegsaday adoo aqalkaaga jooga anwaarul qur'aan online waxa ay ku diyaarisay barashada qur'aanka kariimka iyo xifdigiisa axaadiista iyo adkaarta iyo sidoo kale barashada higaada qoraal iyo akhrin culumta shareecada sida fiqiga tafsiirka iyo weliba luqadda carabiga waxaa halkaa kugu diyaara macallimiin awood u leh inay adeegsadaan luqadda ingiriiska iyo afkeena hooye ee Soomaaliga waxaadna kala xiriiri kartaa nambarka shaashada kaaga muuqanaya anwaarul qur'aan online waa dugsiga alburuj quraan online oo ubadka qurbaa ku nool ku barbaarinaya barashada quraanka kariimka القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة dugsigan ayaa waxa wax ka dhiga macallimiin khubara kuwaas oo aqoon xeel dheer u leh fidinta diinteena islaamka iyadoo ubadkeena lagu barbaarinayo barashada quraanka kariimka asaasiyadka cilmiga shareecada islaamka sida fiqiga tafsiirka caqiidada islaamka ducooyinka iyo waliba farqurxinta higaada luqadda carabiga sanad dugsiyeedkan waxa uu qaadanayaa arday kooban kuwaas oo kala jooga dhammaan daafaha dunida waxaana duruusta ardayga lagu soo gaarsiinaya aaladaha Skype-ka Telegram-ka WhatsApp-ka hadaba waalid ubadkaaga keen dugsiga alburuj quraan online adigoo ka wacay telefoonada shaashada kaaga muuqda balanteenu waa alburuj islaami quraan online bishaaro ma doonaysaa in waalidkaaga oo dhintay ama geeriyooday ama xanuunsan oo sariiryaal ah in lagaaga cumreeyo inta lagu guda jiro bilaha xurmada leh wax ka yar $300 ayaa lagaaga cumreynayaa waalidkaaga waxaana fursaddan qaaliga ku siinaysaa shirkadda xajka iyo cumrada ee taqwa oo kuu samaysay qiimo dhimistan ballaaran
waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cimradu u dhacday waxaana shaqadan qabanaya culimo aqoon u leh haddaba si aad uga faa'iidaysato fursaddan qaaliga ah la soo xiriir shirkadda xajka iyo cumrada ee attaqwa xajan cumra adigoo kala soo xiriiraya taleefanada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda